kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasta oo aad dunida ka joogtaan halkan waa warsan news waxaad ku soo dhawaataan wararkii iyo warbixinadii ugu dambeeyay ee degdega ahaa ee ka dhacay gudaha dalka iyo dibadda qaybtan saaka oo jimco ah waxaynu ku eegi doonaa Fahad Yaasin Xaaji Daahir hoygu uu ka degan yahay Muqdisho ciidamo xoogan ayaa hareeyay cabsi miyuu wajahaya maxay tahay ciidankan hareeyay amnigiisa oo si aad ah loo adkeeyay maxaa iska bedelay balanqaadkii uu sameeyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa soo kordhay xogaha ugu dambeeyay ee ku saabsan ciidankan lagu arkay hareeraha hoyga Fahad Yaasin uu ka degan yahay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya wararkii ugu dambeeyay ee dhaqdhaqaaqa caasimadda Muqdisho ee ka dhanka ah tallaabadii ay Israa'iil ku aqoonsatay Somaliland maanta si waxa la filayaa in wasiirka arrimaha dibadda Shiinaha uu soo gaaro magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya tallaabo military oo la qorsheenay in toos loogu qaado iyo xogihii ugu dambeeyay ee ku saabsan kulamada la filayo iyo waxyaabaha looga hadlayo in caasimadda Muqdisho ay martigeliso soo dhawaada saaxiibayaal jimco wanaagsan subax wanaagsan waqti kasta oo idin tahayna wacan ayaan idin leenahay aragtidiinana qaybta faalada ama comment kaga soo dhiibta sidoo kalena waxa aad muuqaalkan la wadaagtaan saaxiibadiina si ay idin la daawadaan haddii ay tahay markii idinku horeysayna in nagu soo biiro oo ka mid noqo saaxiibada haddii jeeraale ku xiran halkan hela xogaha iyo macluumaadka aynu halkan ku soo baahino hagaag aan ku bilaabo warar soo baxaya ayaa sheegaya in hareeraha hoyga Muqdisho uu ka degan yahay taliyii hore ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka NISA Fahad Yaasin Xaaji Daahir sidoo kalena mar soo noqday la taliyay dhinaca amniga agaasimihii dhinaca waa madaxtooyada ee xilligii dawladii Maxamed Cabdilaahi Maxamed Farmaajo xogo waxay tilmaamayaan in ciidankan dhamaantooda ay yihiin ciidamo loogu talagalay inay xaqiijiyaan amniga Fahad Yaasin Xaaji Daahir waxaase jirta in Fahad Yaasin Xaaji Daahir tan iyo markii uu yimid Muqdisho maalinta ka dambaysa ay ciidamo hor leh hoygiisa ay gaarayeen kuwaas oo loogu talagalay inay si guud u sugaan amnigiisa waxaase la tilmaamayaa in ay cabsi la xiriirta dhinaca dawladda federaalka Soomaaliya ay jirto waxaana xusid mudan in Fahad Yaasin Xaaji Daahir lagu tuhmayo amaba dadka xogta ka haya uu qayb ka yahay kiiska Ikraan Tahliil Allah u naxariistay oo la waayay Ikraan oo ahayd xubin ka tirsan taliska hay'adda nabad sugidda sirdoonka qaranka NISA xilligii dawladii Maxamed Cabdilaahi Maxamed Farmaajo ayaa la waayay nolol iyo geeri hasaatay inkastoo dawladii xilligaasi jirtay ay cadeysay in Ikraan la dilay Fahad mar uu wareysi bixiyay waxa uu ku eedeeyay mas'uuliyiin dawladda federaalka Soomaaliya iminkan xilal ka haya oo uu ka mid yahay agaasimaha iminkan hay'adda nabad sugidda sirdoonka qaranka NISA Mahad Maxamed Salaad waxa kale oo jirta in Fahad Yaasin Xaaji Daahir kiiska Ikraan uu dusha u saariyay wasiir ku-xigeenka warfaafinta ra'iisul wasaarihii hore ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble iyadoo kiiskan xasaasiga ah eedeemo culus uu dul hoogiyay mas'uuliyiintan Fahad Yaasin ayaa dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya toddobaadkan si ilaanaya maalintiisii Talaadada ahayd waxaana Muqdisho ku soo dhaweeyay xubno ka tirsan xisbiga haybad qaran oo magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya xalay looga dhawaaqay isla markaana ay qayb ka yihiin xubno siyaasiyiin ah oo mug iyo miisaan ku leh saaxadda siyaasadda Soomaaliya Fahad hoolka wuxuu la tagay ciidamo aad u fara badan gaar ahaan kuwa dharcadka waxa uu ka duunaa madaxda kale ee halkaas ku sugneed xitaa waxa uu ka istaaf badnaa ama ka ilaalo badnaa xubno isaga ka darajo sareeyay oo madax ka soo noqday dawlad goboleedyada dalka qaar sida Cabdikariin Xuseen Guule ra'iisul wasaarihii hore ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdi Faarax Shirdoon Saacid gudoomiyaha xisbiga haybad qaran oo ay dhisayaan siyaasiyiintan uu ka mid yahay Taabid Cabdi Maxamed wasiirkii hore ee wasaaradda amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Islow isil la mid ah waxa qayb ka ah gudoomiyihii hore ee golaha wakiilada maamulka Somaliland ee dhawaan ku guul daraystay doorashadii ka dhacday waqooyi bari ee Soomaaliya ee looga soo guuleystay si kastaba ha ahaatee waxa xogtu ay tilmaamaysaa in Fahad Yaasin Xaaji Daahir balanqaad uu ka helay dhinaca dawladda federaalka gaar ahaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee ah in aan marnaba laga argoosan doonin xubnihii dawladii Farmaajo la shaqeeyay dhacdooyinkii dhacay xilligii Farmaajona aysan jirin loo ciqaabi doono waxaase jirta ilaa iminkan in
ay maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ay ka furan tahay gal dacwadeedka Ikraan oo aan weli la soo xirin welina lama hayo cid rasmi ah oo arintan loo soo qabtay ama baaris rasmi ah ama in xitaa galkan dib loo furo oo loo ambaqaado si cadeemo loo helo فهد مرة ورئيس بحنا وحو سعد وشاقي إن حل كستا الله بعض ومحكمة تجي دونه عدامة بوحدنا وهايو كيس كان وحصل الروميسين هاي إن أرنتن حساسية دا أي كدلتي أي كانتي إن استاف أما إلى على بدن وسميستو فهد ياسين حاج داهر أو ولك السجن مقالة مقدشة عاصمة الصومالية وحواره وصار دسم مدحوينا حسن الشيخ محمود سنة كي لبضو كون يلا بي تبنكي وحول دسم محمد عبد الله محمد فرماجو سنة كي لبضو كون تطبيق تبنكي إما كان سوحاو لسيا عبد فارح شردون ساعد رئيس الوزاري هوري دلكا أو إما كان كمدا حبناها وقعت عاد xilka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ee doonaya inuu tartamaan doorashada sanadkan ka qabsoomi doonta gudaha dalka markan haddii aynu eegnana isla wararkeena kale ee la xiriira waxa la filayaa in tallaabooyin waaweyn oo looga jawaab celinayo tallaabadii ay Israa'iil ku aqoonsatay maamulka Somaliland isla markaana uu aqoonsatay dalka madax banaan Soomaaliya inteeda kale in si rasmi ah markan loo qaado maanta Muqdisho waxa soo gaaraya wasiirka arrimaha dibadda dawladda Shiinaha oo si weyn looga dareemayo soo dhaweyntiisa magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxa uu qorshe u yahay in markuu uu soo gaaro Muqdisho uu la kulmo madaxda ugu sareysa ee qaranka wuxuuna kala hadli doonaa arinta faragelinta Israa'iil ay ku sameysay marka la eego madax banaanida Soomaaliya iyo si la mid ah ay Shiinaha u qaadaan dhabaha dhinaca diblomaasiyadda iyo sidii arintan gabi ahaanba loo soo afjari lahaa xogaha iyo macluumaadka soo baxaya waxay sheegayaan in ay Shiinaha si la mid ahna ay dawladda federaalka Soomaaliya ay siin doonaan ballanqaad cusub oo difaac ah waxaana jirta oo suurtagal ah in Shiinaha ay Soomaaliya ay ku wareejiyaan hubka casriga ah diyaaradaha iyo gaadiidka nooca dagaalka ah iyo in ay qalabeen buuxda u siiyaan ciidamada qaranka Soomaaliyeed iyo in tababaro ay ciidamada Soomaaliyeed ay ku soo qaataan dalka Shiinaha waxaase la filayaa in la dedejiyo guud ahaan hirgelinta tallaabooyinka aan hadda idinkaga warramay wasiirka arrimaha dibadda Shiinaha ayaa muddooyinkii ugu dambeysay waxa uu ku jiray socdaal uu ku marayo dalalka qaaradda Afrika iyadoo uu si adag kaga hadlayo qadiyadda Soomaaliya iyo inay ka hortagaan oo midow sameeyaan oo arintan hal dhinac ay uga soo jeestaan sida muuqata Israa'iil Shiinaha iyo Turkiga ayaa iminkan ku loolamaya Soomaaliya Mareykankana waxa uu ku jira garabka Israa'iil iyadoo oo daah gadaashiisa dabcan ay ku jirto oo aan marnaba dhiiran inay banaanka soo baxdo imaaraadka carabta dhammaan dhinacyadan waxa uu markan ay u muuqanaysaa in loolan adag oo dhinaca saaxadda siyaasadda Soomaaliya ay ku loolamayaan wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha kadib waxa xigi doona socdaalo madaxda qaranka ay ku tagi doonaan Shiinaha halka madax ka socota Shiinaha ay halkan imaan doonaan waxaana la filayaa in tallaabooyin military waaweyn oo looga jawaabayo xaaladan cusub ee soo kordhay in maalmaha soo aadan la qaado Shiinaha kol hore qoraal ay soo saareen waxa ay uga digeen Somaliland in ay ku dhaqaaqdo dhabaha waxa loogu yeeray gooni-goosad oo ay ku tilmaamtay in ay khatar ku tahay xasiloonida gobolka Shiinahana uu ixtiraamayo madax banaanida Soomaaliya tallaabadii Israa'iilna ay ku tilmaameen in ay tahay mid lagu carqaladeynayo amniga guud ee gobolka ka jiro gaar ahaan midda Soomaaliya oo ay sheegeen in Shiinaha marnaba aysan ka tanaasuleynin mowqifkooda taageerada iyo garab istaaga ay u sameynayaan dawladda federaalka Soomaaliya ee hogaamiyo Dr. Xasan Sheekh Maxamuud dawladda federaalka iyo Shiinaha xiriir qoto dheer ayaa ka dhaxeeya oo ku saleysan saaxiibtinimo iskaashi ganacsi dhaqaale amni iyo dhinacyo kale oo taageero ay ka siiyaan dawladda federaalka ee Soomaaliya Shiinaha waxa ay rumaysan yihiin in marin istiraatiiji ah oo Soomaaliya ay tahay haddii Israa'iil saldhig military ay ku yeeshaan ay guud ahaan ay jahwareer geli doonto xaaladda mandaqada sida liajrigeedana xilligan oo ay ugu haboon tahay oo laga hortagi karo in Shiinaha tallaabo kasta uu u qaadayo Turkiga ayay iska kaashanayaan dhawaan golaha ammaanka qaramada midoobay oo qadiyadan la geeyana si adag ay uga dhex difaaceen Soomaaliya qadiyadeeda labadan dawladood wad ku mahadsantahay la gunaanadka muuqaalkan haddii aad ila soo gaarteen waan idinkaga mahad celinayaa nabaddiino